ma garanayno doorashada dhacaysa ma garanayno sida ay u dhacayso ma garanayno qaabka loo maareynayo ma garanayno codka muwaadinka sida loo fasirayo nooma qaabaysan waxaasoo dhan maantaana laga rabaa inaan qaabayno oo aan hagaajino marka dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan u diyaar garowno mustaqbal fiican oo qurux badan waxaan wanaag dadkan iyo dalku ay wada leeyihiin aan ahayn oo dawladnimada keenaya ma jiro koox galigeed meel wax ula baxsan karta ma jirto koox kaligeed shaarkeeda inta tolata iyadu xiran karta ma jirto waxa dalka dawladnimadu waa wax la wada leeyahay haybadeeda la wada leeyahay masaalixdeeda iyo ku hoos noolaashadeeda la wada leeyahay dhibaatada iyo duruufta loo marayo dhismaheedana waa la wada leeyahay waa la wada wadaagaya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed markale inaan kalsoonidooda ku guriyo u ballan qaado wax koox gaar ah ay leedahay oo dalkan lagu maamulayo oo ka dhaqan galaya ma jiraan dalkan waxa ka dhaqan galayo oo ka shaqeynaya oo kaliya waxa aan wada leenahay ka wada tashanay isla qaadnay aan iska dayno muxuu tuhumada iyo qolaa meel wax ula cararaysaa dhowr iyo 20 sano way aragnimo waa noogu filan tahay oo qolo markay dhinac wax ula cararto wixii ka dhalan jira waa la garanayaa annagoo og wixii ka dhalan jira maarta in qolo marka dhinac inay wax ula cararto aan ogolaano ama dadaal iyo juhdi badan aan ku bixino macna ma sameynayso waa siyaasadu waa abaabul qof walba is abaabul qofka aad ku ra'yiga tahay abaabul laakiin waxaan lagu kala ra'yi duwanaa karin waa dawlad Soomaaliyeed oo shaqeynayso oo dadka iyo dalka iyo diintaba mas'uulka ah in la helo laguma kala ra'yi duwanaa karo laakiin sidaanay ku imaan kartaa iyo sidaanay ku imaan kartaa waa laga yaabaa in lagu kala ra'yi duwanaado laakiin waxa aan ku kala ra'yi duwanayn oo ah dawlad Soomaaliyeed oo shaqeynayso in la helo kuma kala ra'yi duwanin wax kasta oo ceeb ku ah wax kasta oo dib u dhigaayo wax kasta oo caqabad ku noqonayo dawlad Soomaaliyeed in la helana aan muxuu ahay aan ka caajisno